ka tacsiyeynayna dhibka loo geystay gabadha yar oo 12 jirka oo maaragtay sida yaxooshnimada leh oo bahalnimada leh oo diinta islaamka ka fog oo bilaadanimada ka fog oo Soomaalinimada ka fog loola dhaqmay waxaan u tacsiyeynayna dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u tacsiyeynayna qoyskii ay ka dhalatay hooyadii dhashay wax loo dul qaadan kara maahan aadan uga xunnahay waan ka qiiroonay waan ka tacsiyeynayna 11 jeer waxaan codsanaynaa in cadaaladda dadkii geystay dhibkaas la horkeeno waxaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqaynaa xukuumadda federaalka iyo maamul goboleedyada in gacan bira lagu soo qabto dhagar qabayaashii geystay dhibaatada baaxadda leh looma dul qaadan karo looma adkeysan karo in maalin walba tacdiye intaas la eg loo geysto gabdhaha Soomaaliyeed baaqaas waxaan u jeedinayaa dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka in cadaaladda la horkeeno maalin kasta in dhibaato inta dhacdo iyadoon laga gaarin wax natiijo laga soo harana looma dul qaadan karo culimada islaamka odayaasha u qaasha wax garadka waxa leey meel ka soo joogo umada laga kaco waxa u dul qaadan karna ma ahan gabar yar oo saqiir ah oo aan qaarin gaarin oo maalin kasta loo kufsanayo war dadka dulmiga laga daayo war dadka waa la dhameeyay war dadka ragi waa la dhameeyay dadka waa la dulmiga ilaahu dulmaana la rogin kan waa dareen ka falcelineed ee bulshada ku dhaqan gaalkacyo waxa ay si isku mid ah u cabirayaan dareenkooda ku aadan falkii lagu kacay Caaisha Ilyas Aadan oo ahayd 12 jir u geeriyootay jirdil cid aan haybtooda la aqoon ay u geysteen eelkoodu waxa uu sheegay subaxdii hore ee shalay oo axad ahayd in ay adeeg u dirsadeen kadibna jidka laga qaatay tan iyo shalayna ay baadi goobiyeen sasaaka oogta hore iyadoo meed ah xaafadda la soo hordhigay maqalka xogtan kadib waxa magaalada ka bilaabmay dibadbaxyo lixaad leh oo looga soo horjeedo arintan ugubka ku ah gobolka iyadoona banaanbaxyadu markii dambe isugu soo biyashubteen afaafka hore ee taliska qaybta gobolka waana kuwan iyagoo dareenkooda ka hadlaya ilaahay waxaanu ka baryaynaa cid kale la baryaa ma jirdo in ilaahay soo qabto ilaahay inuu soo harkeeyo inuu sharci soo dhigo in ilaahay soo qabtaan ilaahay ka baryayna matulaahi barakaatu waxaan codsanaynaa Puntland madaxweyne Danay waxaan ka codsanaynaa gabdhaha kufsiga laga daayo caruurta kufsiga laga daayo nimanku anaga xishoodaan ilaahay ka cabsadaan alli abuurta ka cabsadaan ilmo yar oo 12 jir bay soo dileen bay kufsadeen bay meel walba jeexaan ilaahay ka cabsadaan hooyooyinkood baanaha walaalahood baanaha xaasaskoodii baanahay annaga dhalnay habar yar baanu nahay eedaan u nahay ilaahay ni soo qabto dulmiga ma aan u noolaan karno saan nolol ma ahan saan kuma noolaan karno haddaanu nahay gabdho dhalinyaro barnaamijka uma bixi karno wax ma soo qabsan karno wax ma baran karno heer waxaan gaarnay aan bixi karin aan wax soo baran karin aan buug aan soo akhrin karin saan nolol ma ahan saan rag sidaan ka bedela waxay dilayaan waxay kufsanayaan waa gabar walaashooda waa hooyadood waa habaryartood waa xaaskoodi waa eedadood saan nolol ma ahan saan waxa laga bedela waxa weeye maanta foolxumada meesha ka dhacday iyo in xumada maanta meesha ka dhacday waxa la kufsaday waa gabar anagoo kala waa hooyo dhashay wayna dhalatay maanta dhibaatada meesha ka taagan rag baa geystay tanoo kalena hadda ka hor kama dhicin gaalkacyo laakiin waa dhacday waxaan rabnaa nimankii dhibka geystay dawladdu inay noo soo qabato oo annaga dumarkeenna aan toogano oo raggu noo toogan baan diyaar u nahay haddii Soomaalinimo jirto haddii dumarka loo yiilinayo hooyooyin baa nahay intaasaan anagu leenahay la soo qabto ninka dhibaatada geysanaya dhulka kama soo bixin hooyaa dhashay guryahana dib loogu noqdo Ahmed Diiriye Sugal oo ka tirsan saraakiisha caafimaadka isbitaalka weyn ee Gaalkacyo ayaa sheegay in iyadoo meed ah la soo gaarsiiyay gabadhan yar isbitaalka waxaana uu intaasi ku daray in ay qabtay dhaawacyo waxaan loo keenay saaka gabar da'deeda lagu qiyaasay 12 ilaa 13 baa isbitaalka la keenay marka la keenana meed bay ahayd jirkeeda inta badan waxa ka muuqda calaamado dhaqaatiirta baaritaan ku sameysay oo aan u diray calaamadaha ka muuqda siiba inta wajiga xabadka caloosha iyo bowdyaha inta hore calaamadaha ka muuqda
dhanka kale taliyaha saldhigga gobolka Axmed Maxamed Afrax Taraafika oo ka hadlay arrintan ayaa sheegay in ay wadaan baaritaano ay ku beegsanayaan ciddii falkan ka dambeysay waxaana uu bulshada Gaalkacyo ka dalbaday in aan la sameyn wax liddi ku ammaanka magaalada Gaalkacyo baaritaankeena gacanta ku hayna waxaana ballan qaadayna haddaana ilaahay ka waayin dadkaas inaan gacanta ku soo dhigno insha Allah haddii sharciga loo horkeeno sharciga islaamka inaan soo toortaagno waxaan ka codsanaynaa oo uga faa'iideysanayaa saxaafadda ummadda waxaan ka codsanayaa ummadda reer Puntland reer Gaalkacyo kiisaska waa loo raadgadaa inaan kiiska loo raadgadin soo baraha iyo buuqa iyo orodka iyo muhdaraadka iyo dhacdo waxa la ordayo waxba inay ku kordhinayaan gabadhu waa ina ka dhimatay gabadheeni inaan joojino in la joojiyo buuq iyo xasarad السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.